السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid Iran oo soo bandhigtay magaaladan oo dhulka hoostiisa oo sawaariiq ah iyadoo sheegtay in magaaladanu ay qayb ka tahay dhowr magaalo oo kale oo dhulka hoostiisa oo sawaariiqdeedu ay ku kaydsan tahay xilligii loo baahdana ay garaaci doonaan bartilmaameed kasta. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo aragtida laga bixiyay arrinka waan idinla wadaagi doonaa. waxaa kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Netanyahu oo weydiistay maxkamadda sare ee Israa'iil inay ka laabato go'aankii diidmada ahaa oo ay diidaysay in xilka laga qaado taliyihii hay'adda sirdoonka gudaha ee Shabak. hase ahaatee jawaab kulul ayay maxkamaddu siisay Netanyahu. waan idin hayaa rabshadihii iyo mudaharaadyadii ka socday Israa'iil oo sii xoogaystay xarunta baarlamaanka oo la sheegay inay mudaharaadayaal isku dayeen inay xoog ku galaan iyadoo dhowr qof ilaa 9 la sheegayo in la qabtay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iskoorimaada iyaga iyo booliiska. xaalku uu kacsan yahay Turkiga oo wafdi ballaaran u diray Mareykanka si ay arrimo muhiima uga xaajoodaan waxaana hogaaminaya Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. haddaba qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa Iran ayaa telefishinkeedu wuxuu soo bandhigay video uu ku muujinayo gantaalo dhulka hoostiisa ah magaalo ku yaala ku kaydsan. waa xaafad dhan oo baabuurtu ay saacado isaga soconayaan. waa la yaabo ku sidee godadkan u sameeyeen aalay waxay yiraahdeen waliba waa mid kamid ah magaalooyinka dhulka hoostiisa noogu yaala ee gantaaluhu noogu xariisan yihiin. January la soo dhaafay ama bishii Janaayo ee la soo dhaafay waxay sameeyeen sidan oo kale video soo bandhigeen oo magaalo kala ah oo aan midan ahayn. waxayna yiraahdeen waa meeshii gantaalaha 200 oo gantaal looga garaacay Israa'iil dhawaan markii iyada Iran ay isku dhaceen. laakiin hadda xaafadan cusub ee dhulka hoostiisa gantaaluhu waa mid cusub oo dahana leeyahay. gantaalahaas ku jira gantaalo noocyo kala duwan ayaa halkaa ku kaydsan oo mar walba oo loo baahda isfuraya oo ka soo dhex baxaya dhulka. waa cajiib farsamo la yaab leh ayaa halkaa ka taagan aalay. haddaba videoga wuxuu soo bandhigay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka General Hussein Salami iyo mas'uuliyiin kale oo gawaari ku dhex mushaaxaya xaafadda dhulka hoostiisa ah halkaasoo maartay ay gantaaluhu dhinacyada ka safan yihiin. haddaba telefishinku wuxuu sheegay inuu si weyn u faahfaahinayo inuu si weyn markaa uga hadlay taliyuhu in xaafadanu ay qayb ka tahay dhowr xaafadood oo kale. cid kasta oo isku dayayso yiri inay Iran wax yeelayso ma u fududaan doonto inay Iran si fudud wax ku gaarsiiso sababtoo ah anagu dhulka iyo cirka iyo bannaankaba waa joognaa dheen iyo dhulka hoostiisa intaba waa ku jirnaa. marka Mareykan gabgabtiisa iyo Trump iyo kooxdiisa iyo Israa'iil ha soo socdaan dheen anagu waxa suwar ay yeelayno ma ahan taagayiin. haddaba qodobka halkaas ayaynu kaga gudbaynaa waa sheeko la yaab leh. markan waxaynu u gudbaynaa Israa'iil. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu sameeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil codsi ayuu u gudbiyay maxkamadda sare ee Israa'iil. wuxuu yiri joojiya go'aankii aad ku joojiseen inaan xilka ka qaado taliyihii hay'adda nabad sugidda gudaha Shabak. maxkamaddu soo jawaabtay waxay tiri warkaas war shaqeynaa ma ah. ninkanu ilaa 8 April isaga xukunka haynaya. wuxuu sidoo kale aan ka fariisan doonaa xilligaas kadib xaaladdu la qiimeynaa garsoorayaasha iyo maxkamadda inay xaq u leedahay inay xilka ka qaadi karto iyo in kale markaas laga shiraya maxkamaddu ka fariisanaysa. inta ka horeysa ninka shaqadiisu wadanaya. laakiin waxaan kugu ogolnahay waxa dhici doona in lagu diidi doono in lagu ogolaan doono waa 8 April kadib. marka inaad cidda aad rabto inaad ku bedesho la sii hadli kartid. haddii laga diidana nasiibka haddii lagu ogolaado waa kaas. laakiin waxa ku bedeli kartid male. awal golaha wasiiradu maxay marka sameeyeen ilaa 10 April
ayuu xilka sii joogayaa laakiin haddii ka hor qof bedeli kara la arko waa lagu bedelayaa saas u ah heshiiskooda laakiin hadda ma bedeli kartaana la yidhi ilaa maxkamaddu ay go-aan kale ka soo saarto sheekadaas halkaasay maraysaa dhanka kale mudaaharaadyo xoog leh ayaa weli waxay ka dhacayaan israa'iil dadku way cadhaysan yihiin waxay kasoo horjeedaan qaab dhaqanka xukuumadda netanyahu qaarkood waxay maanta soo hujuumeen oo ay soo weerareen aqalka baarlamaanka ee kiniisadka oo dood kulul oo miisaaniyadda ku saabsan ay ka dhacaysay waa tii barnaamijku hore idinkugu sheegay laakiin hadda iclaamka ama warbaahinta israa'iil waxay leeyihiin 9 qof ayaa la xirxiray oo lagu soo eedeeyay inay rabshado iyo xoog rabeen inay ku galaan xarunta baarlamaanka iyaga iyo ciidankuna ay halkaa isaga dhaceen marka iyaduna mudaaharaadyadaasi halkaas ayay marayaan xaalku marka cirkaas ayuu isku shareerayaa waayahay qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa haddaba xaaladda Gaza maxaa ka soo kordhay Gaza weli duqeymihii ayaa lagu wadaa xaalkeedu marka waa iska allow sahal dhibaatadaas ayaa taagan ciidamada Israa'iil waxa la leeyahay waxay qabteen dad samafalayaal ah oo baabuur ambalaasa oo dad doonaysay dhaawaca iyo maaragtay dad kale ayay wadada u galeen deegaanka Rafah way qabteen iyo qolooyin kale oo iyaguna ciidanka la yiraahdo gurmadka degdega ah oo maaragtay damdamiska iyo waxa kan iyo ka shaqeeya ayay qolooyinkaasi qabteen marka hadda waxa loogu baaqayaa inay si shuruud la'aan ku sii daayaan marka xaalka Gaza waa iska allow sahal ducada badiya in ilaahay dadka mushkiladda iyo dhibaatada ay ku jiraan uu ka dulqaado uu ka badbaadiyo haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa Turkiga oo wafdi ballaaran u diray maamulka Donald Trump iyagoo raba arrimo badan oo maamulkii hore ay isku hayeen in la xalliyo oo la dhameeyo Erdogan wuxuu ciyaarayaa taagtiig khatar ah maadaama ninkii mucaaradka ugu weynaa oo Trump inuu la kulmo rabay uu xabsi ku tuuray isaga ayaa Trump marka aadaya qaybta ugu dambaysa waxaynu ku faahfaahinaynaa Turkiga ayaa wafdi heer sare u diray Mareykanka uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan waxay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale haddaba kulankan ayaa waxay Turkidu ku sheegeen in lagaga labada xaajoon doono waxyaabihii hore Turkiga loogu diiday oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca diyaaradaha dagaalka Mareykanka uu ka rabay iyo waxyaabahaas oo dawladii Biden ay ka hor istaagtay ayaa hadda waxa leeyahay inay wadadii soo furaan ay rabaan wafdiga Turkiga maadaama markii hore dawladii Biden ay ku haysatay ninka la yiraahdo Erdogan inuu saaxiib la yahay Putin saaxiibtinimada uu joojiyo Erdoganna uu diiday laakiin hadda wuxuu leeyahay Erdogan wuxuu leeyahay awal Ruushana la ku haystay ila saaxiibna laakiin hadda macalinka weyn odagii hogaaminaya meesha aba Turki baalki Ruushka saaxiib la Trump iyo Putin waaba saaxiib marka anaga maxaa loogu diidaa marka heshiisyadii horena la ka kansalay diyaaradihii dagaalka iyo wixii ayaan u baahanahay arrimo kalena way ku hoos jiraan la leeyahay oo ku saabsan in maaragtay maamulka Donald Trump aanu wax taageeraha siinin qolyahan mucaaradka iyadoo maaragtay awal shakigu uu ahaa ninkan inuu ku sii socday Mareykanka oo qolo ganacsato ah ay doonayso inay Donald Trump ka gadaan oo ka iibiyaan doorashada 2018 inuu la tartamo ninka la yiraahdo Erdogan marka ninkan Istanbul haystay ee hadda xiran markii xabsiga lagu tuuray ayaa ninka la yiraahdo Erdogan isaguna wafdiga Mareykanka u diray marka waxa leeyahay waa taagtiig dhinac walba ah oo Erdogan uu ciyaarayo dhanka kale mudaharaadyada way sii xoogaysanayaan Istanbul وهابينكي تطبعات على اللي هي dadku ay isku soo baxeen caawa xarunta maamulka hortiisa halkaas oo ay doonayaan in maartay lagu soo daayay ninka xaran hase aatee Erdogan iyo dawladdiisu waxay yiraahdeen arikan suuragal ma dhowr qof oo kale ayaa hadana la qabtay oo maartay ninka xiriir la lahayd oo xabsiga lagu tuuray soo kale waxa looga digay dadka mudaaharaadayaasha sameynaya mucaaradka ah inay feejignaadaan si argagixisadu aanay ugu soo dhex dhuuman sida ay yiraahdeen wasaaradda arrimaha gudaha mas'uuliyiinta